تاريخها الدنيا وقوت تحانا وياني تقتدي كل افتبا وحباها لقد تحراعي عرنتي مركا تاغن ولا لا تعالى تيمادا مركا مقنوا عينادو توغيسو awjeedkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tubta toosan iyo guusha waa loo tartamayaa kalaabooyinkana qaadnayba حكومتنا تاغيرو aan isgarab taagno tafaraaruq lama doonay waxaanu leenahay maanta waxaynu taaganahay oo aanu halkan ku xarig sharaynaa munaasabadan quruxda badan laba wado oo kamid ah laamiyadii ka socday ee magaalada runtii labadan wado oo shaqadooda muddooyinkii u dambeysay ay socotay ayay maanta noqotay maalintii laga jari lahaa xariga oo ay dadweynuhuna isticmaalkoodii u bilaaban lahay inay ka faa'iideystaan runtii marxalado kala duwan ee bay soo martay iyo waqti aad u badan waxaanu u mahadcelinaynaa cid walba oo ka soo qayb qaadatay oo hawshan ay ugu horeyso dawladda dhexe ee Puntland sidoo kale shacabka degmada Gaalkacyo khaasatan dadka degan ee wadadan ama labadan wado oo la isku dhisay oo middan guure iyo wadada kale suuq yaraha labadaas wado oo runtii la oran karo waxa la galiyay juhdi aad u fara badan oo isugu jira isku tashi iyo kii dawladda waxaanu rajaynaynaa insha Allah taala in intaan iyo in ka badanna ay noo qabsanto waxaan kala rabaa in halkan uga mahadceliyo shirkadda Kibaarko ee wadaniga ah ee dhistay laamigan iyo kuwa kaleba waxaanu leenahay Kibaarko runtii ayadoo aysan haysan mataqaanaa wixii ay ku dhisaysay bay dhistay ilaa haddana ay ku leedahay qaybo ee wadooyinka waxaanu leenahay aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin runtii waa horumarkii ay Gaalkacyo ku tilaabsanaysay oo dhinaca amniga iyo wadooyinka iyo bilicda qayb ka mid ah weeye waxaan u mahadcelinaynaa ciddii wadadan qayb gacan ka geysatay oo dhan dawladda Puntland dawladda hoose ee Gaalkacyo hay'adda JBLG-ga ee wadadan dhisay Kibaarko shirkadda wadaniga ah oo qiimaha badan oo wadadan iyo wadooyinka kaleba gobolka ka sameeya iyo guud ahaan Puntland oo dhan aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa wadadan dawladana xil baa ka saaran ilaalinteeda shacabkana xil baa ka saaran haddaan Soomaalinaana ceeb aan leenahay jirno wax waa dhisan karnaa laakiin ma ilaashan naqaan shacabka xil ka saaran wuxuu yahay dhagax jino wadada lagu xiraa jiro oo pedestrianka wax u bedeleen inay dadku dhagax samaystaan oo dhagaxaas wadada waa jabiyaa waana wax aan fiicnayn waxa la rabaa dhagaxa in laga ilaasho waan cid dhagax ku xirin waxa la rabaa wadada meelaha ku soo jeedo meheradaha inay biyaha ku daadin biyuhu laamiga jilcinayaan dabeedna wadadu waa qodmaysaa shacabka ilaalinta wadada waa laga rabaa magaaladan waxa ka socda horumar ballaaran waxaan rabnaa cid kasta oo maal gashanaysa oo Soomaali ah iyo qayra Soomaaliba Gaalkacyo waa ka gudubtay waqtigii dib u dhac waqtiga horumarka ku tilaabsatay wada fiican bay agta saartay waxa la rabaa dadka inayna fursadan ka faa'iideysataan oo qof kasta oo ganacsi iyo wax ahmiya maanta wax kasta laga sameyn karaa waa santarkii Soomaaliya oo meel dhexdhexaad ku taala Soomaaliya bartamaheedii ah waa meel nabadi ka jirto hadda nabadeedu ay aad saaid u tahay oo meelaha ugu nabadda badan ka mid ah Soomaaliya waa meel siyaasad ahaan fiican oo dadka wada deganay dad isku wanaagsan oo dhibaatadii ka dhaxbaxday ay yihiin oo colaadihii iyo shidooyinka ka soo marteen horumarkaas marka waxa la rabaa cid kasta oo businesskeeda iyo inay horumarisa rabtaa hadee Gaalkacyo fursado leedahay hoteeladii waaweynaa iyo maqaayado waaweyn iyo isbitaallo iyo iskuulo maaragtay caalamiga iyo ciddii wax meeyay soo dhan Gaalkacyo meel aad uga faa'iideysan kartaan weeye ku soo rogmada